kulankan ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana wasaaradda ay soo bandhigtay qodobo ka mid ah sharciga saxaafadda Soomaaliya oo dood badan ay ka keeneen wariyaasha Soomaaliyeed ayaa waxaa ka soo qayb galay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi, wasiirka warfaafinta Xasan Cabdi Maxamed, gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed Muxudiin Xasan Maxamed Muxudiin Xusni, gudoomiyaha gobolka Baay علي وردير عبد الرحمن iyo wariyaasha ka howlgala warbaahinta magaalada Baydhabo ku yaala kulanka oo ku saabsanaa ka wada tashiga sharciga saxaafadda Soomaaliya ayaa waxa ugu horeyntii muhiimadda uu leeyahay inay ka doodaan qodobada dhaliilaha ay ka qabaan wariyaasha Soomaaliyeed sharaxaad ka bixiyay Muxudiin Xasan Maxamed Xusni oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Koonfur Galbeed ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Nosoj kulan dowladda gaar ahaan wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ay soo qaban qaabisay oo madaxda wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada amar la isugu wacay oo laga hadlayay arinta ku saabsan sharciga saxaafadda Soomaaliya horey waxa uu jirtay in sharcigan baarlamaankii hore uu la horgeeyay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud maxalliga saxiixay inkastoo xilligaasi ay jireen qodobo badan oo saxaafadda Soomaaliyeed ama wariyaasha Soomaaliyeed ay diidanayeen ama ay u arkayeen in qodobo meel ku dhaca ay ku jiraan marka dawladdan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxay soo gelisay doodo badan markii ay ka sameeyeen madaxda saxaafadda Soomaaliyeed wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay muhiimadda kulankan wasaaradda ay soo qaban qaabisay saxaafadda Soomaaliyeed iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliyeed xilligii وزير ماري وزير كاها أنا شرعي يعني بدن كسوة تشني كلامي بدن قلني كتبنا له بيني كلها وزير هذا كلها وزير هذا نايسو بين برلمان في جمهورية الفدرالية الصومالية برلمان كنا عد أغلبية له أنسحيين كتبنا ملحوينها غني وراء حسن الشيخ محمود لو بدي أسبنا تكرار تخصص صار شرعي يعني ويها شرعي صحافة الصومالية أصير شيء واحد قرآن معها كتاب منزلة وإلهي بسود جي وبسترن وواحد بني آدم قرآن ورياش الصومالية kuwa dawliga iyo kuwa madax banaan intuba markay dib u jaleeceen waxay arkeen qodobo ay isleeyihiin waqtigan maanta xaaladda dalkeena iyo waqtiga maanta aan joogno lama jaan qaadi karo gabagabadii kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi ayaa sidoo kale kulanka hadallo ka jeediyay waxaana uu u hambaliyay wariyaashan maanta ka doodaya sharciga saxaafadda aniga runtii muddada aad shaqada ku jirteen anagoo ugu duruufaad ku shaqeysaan anagoo ugu dhibaatada ku shaqeysaan anagoo ka warqabno marxaladaha adag ee aad ku dhex jirtaan haddana runtii waa in laga bixi doonaan aaminsanahay mustaqbalka hadduu ilaahay raalli ka noqdo adkaysay u baahan tahay example-ga haddii soo qaadaynaa horaan u soconnaa sida annaga hore ugu soconna idinkana saxaafadda hore ugu soconaysaa Cabdullaahi Nuur Aadan magaalada Baydhabo.